السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن وناكسن داوديال idil ahaantiinba kusoo dhawaada warkeennii maalinlaha oo aad kala socon jirteen Murti Media warkana waxa idin la socodsiinaysaa waa Nimcada iyo Maxamed waa maalin Arbaca 27 January 2021 qodobada ugu doorka roon warkeena maanta waxa kamid ah shirkadda WhatsApp-ka oo barteeda statuska ka muujisay xogo cusub ururka IGAD oo ka soo saaray jawaab dacwadihii Soomaaliya ka gudbisay dalka Kenya ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Itoobiya oo kulan la qaatay safiirada dalka reer Yurub imika iyo haatan ku soo dhawaada daawadayaal qodobadan iyo qodobo kale oo faahfaahsan kuwa 10 gobol ee deegaanka ayaa lagu wareejiyay 15 gaari munaasabad kooban oo saaka lagu qabtay gudaha madaxtooyada deegaanka Soomaalida ayaa 15 gaari lagu wareejiyay gudoomiyeyaasha kuwa 10 gobol ee deegaanka Soomaalida 7 gobol ayaa midkiiba la siiyay hal gaari halka 4 gobolna midkiiba 2 gaari la siiyay iyadoo lagu saleynayo baahiyaha xagga gaadiidka ee gobolada ka jirta xukuumadda deegaanka Soomaalida ayaa bishan gudaheeda qaybisay 108 gaari oo guud ahaan loo qaybiyay xafiisyada iyo laamaha kala gedisan ee xukuumadda sidoo kale 42 gaari oo kale ayaa la filayaa in ay dhawaan deegaanka soo gaadhaan gaadiidkan ay wadartoodu noqonayso 150 gaari ayay xukuumadda deegaanku soo iibisay si loogu taageero adeeg bixinta dadweynaha la siinayo tababar kor loogu qaadayo doorka haweenka hogaaminta ah ee barnaamijka korriinka cagaaran oo lagu qabtay magaalada Addis Ababa tababar ujeedkiisu ahaa sidii loo abuuri lahaa isku xidhnaanta dumarka madaxda ah taasoo caawin doonto horay u socoshada iyo gaadhida korriinka cagaaran iyo yoolasha wax soo saarka cagaaran ee Itoobiya iyo sidoo kale ku lug lahaanshaha haweenka madaxda ah ee barnaamijka cagaarinta ayaa maanta lagu qabtay gudaha magaalada Addis Ababa tababarkan oo halku dhigiisu ahaa haweenka hogaaminta ku jira ayaa la furay iyadoo ay goobjoog ka yihiin madaxda sarsare ee dawladda ka socotay oo ay kamid tahay wasiirada haweenka dhallaanka iyo dhalinta ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Marwa Firsan Cabdullaahi Ahmed iyo madax kale iyo sidoo kale wakiilo ka kala socday hay'ado caalami ah tababarkan ayaa waxa fududeeyay iyagoo iskaashanaya wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga wakaaladda horumarinta sabooyinka warshadaha komishinka maalgashiga Itoobiya oo ay la socoto hay'adda adeega kaymaha ee US Forest Service iyo hay'adda GIZ sifay awoodsiiyaan doorka haweenka hogaaminta ah ee dhaqaajiyayaasha korriinka cagaaran ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Itoobiya oo kulan la qaatay safiirada dalalka reer Yurub ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya Damaqa Mokonnen ayaa kulan la qaatay safiirada iyo wakiilada dalalka reer Yurub Damaqa ayaa kulankan ku soo bandhigay warbixin kooban oo ku saabsan arrimaha mucaawimada ee deegaanka Tigray la gaarsiiyay isagoo sheegay in cuntooyinka dawooyinka iyo agab kaleba la gaarsiiyay dhammaan 92 degmo ee deegaanka Tigray Damaqa ayaa sheegay in ay mucaawimada gaarsiiyeen hay'adaha dawliga ah iyo kuwa caalamiga ah oo iskaashanaya Damaqa ayaa sidoo kale sheegay in isgaarsiintii adeegyadii bangiyada korontadii iyo adeegyadii kale ee bulshada loo hayayba dib loo soo celiyay iyadoo ay weheliso dhaymada iyo dib u dhiska kaabayaashii burburay Damaqa ayaa ugu dambeyn sheegay in maamulka ku meel gaarka ah ay shaqaynayaan waajibaadkoodana gudanayaan iyagoo talo iyo taakulaynba ka helaya dawladda federaalka ah Damaqa ayaa hadalkiisa ku soo afmeeray in ay dawladda federaalku wax ka qaban doonto dhanka ku tacadiga xuquuqda aadanaha waa sida uu hadalka u dhigay ururka IGAD oo ka soo saaray jawaab dacwadihii Soomaaliya ka gudbisay dalka Kenya guddiga xaqiiqo raadinta ee ururka IGAD oo loo xil saaray xaqiijinta dacwadda ay Soomaaliya ku soo ogtay Kenya isla markaana ay xiriirka ugu jirtay ayaa ka soo saaray jawaab raadintii ay galeen guddigan oo ka koobnaa 7 xubnood ayaa warbixin ka soo saaray dacwadihii ka dhanka ah dalka Kenya ee ay dawladda Soomaaliya ka gudbisay dacwadda Soomaaliya ayaa ka koobnay qodobadan soo socda kow in ay dawladda Kenya Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo aqoonsatay madaxweynaha dawlad goboleedyada Jubbaland iyadoo aysan dawladda Soomaaliya aqoonsanin doorashadii uu galay 2 in ay diyaaradaha dawladda Kenya ku soo xadgudbeen hawada iyo dhulka dawladda Soomaaliya 3 in ay ciidamada dawladda Kenya ee ka tirsan midowga halganka ee AMISOM iskaga baxeen meel lagu ogaa arrintaasina ay dhashay in ay al-shabaab qabsadaan aagii ay ka baxeen 4 in ay ciidamada dawladda Kenya ka ganacsadaan sonkorta iyo dhuxusha si sharci darro ah 5 inay dawladda Kenya gudaha dalkeeda ku hayso kooxo hubaysan tababarna ku siiso kuwaas oo ka amar qaata Cabdirashiid Janan isla markaana dagaal kula jira dawladda Soomaaliya
guddiga xaqiiqa raadinta ee IGAD ayaa sheegay in aysan dacwadahaas xaqiiqo ahayn waxayna ku tilmaameen waxba kama jiraan marka laga tago qodobka dhanka hawada quseeya arrintaas oo ay guddigu ku sheegeen in ay tahay mid soo jireen ah sababna aan u noqon karin inay dawladda Soomaaliya xiriirka u jarto dawladda Kenya dhanka kale wasiirka warfaafinta Soomaaliya Mudane Abubakar Cismaan Dube ayaa ku tilmaamay jawaabtan mid ku noqotay dawladda Soomaaliya fajac iyo makaag wasiir Dube ayaa sheegay in ay jawaabtan tahay mid cadaalad darro ah oo hal dhinac ka raran isagoo ku tilmaamay qoraahiye laga soo xigtay wasiirka gaashaandhigga ee dalka Kenya Monica Juma wasiir Dube ayaa sidoo kale dhaleeceeyay guddiga loo xilsaaray xaqiiqa raadinta dawladda Soomaaliya ayaa 15 bishii December 2020 ku dhawaaqday inay xiriirka u goysay dawladda Kenya iyadoo sheegtay inay ka tirsanayso dawladda Kenya dacwadahan aan horey u soo xusnay dawladda Kenya ayaa qaxooti badan oo Soomaaliyeed haysa sidoo kalena qayb ka ah howlgalka midowga AMISOM shirkadda WhatsApp oo barteeda statuska ku muujisay xogo cusub shirkadda WhatsApp-ka ayaa madasheeda statuska ku muujisay xog ay ku sheegaysaa in aysan akhriyaynin sheekooyinka gaarka ah ee qofku leeyahay isla markaana aysan dhageysanaynin sheekooyinka gaarka ah shirkadda ayaa sheegtay inay ka go'an tahay ilaalinta arrimaha gaarka ah ee shakhsiga dhawaan ayay ahayd markii ay shirkadda WhatsApp shaacisay inay ku soo bandhigi doonto arrimaha gaarka ah ee barta Facebook arrintaas oo sababtay inay macaamiil badani ku biiraan shirkado cusub kana yaraadaan shirkadda WhatsApp iyadoo arrimahan ka duulaysa ayay macaamiisheeda u sheegaysaa in aysan ku xadgudbi doonin arrimaha gaarka u ah xogaha cusub ee shirkadda WhatsApp kala soco bartooda xaaladaha status warkeennii maantana daawadayaal waa naga intaan marka xigta ku kulmi doona hawada waxaanu idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh